Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Sokocid Academy. Maanta waxaan qaadanaynaa sidaad wordka ugu samaysan lahayd table, kadibna tablekaasi aad xisaabtiisa isku dardarto oo total aad ku samayn lahayd. Marka ugu horeeya waxaan soo kacsanayaa wordkayga anigoo isticmaalayo qaabka loo yaqaano WinWord. kadib waxaan ku dhufanayaa blank document oo document faaruq ayaan soo qaadanayaa. Sida marka aan sameeyo waxaan samaysanayaa qaybtan ugu sareysa ayaa waxaan ku qorayaa company magaciisa, kadibna farta waxaan geysanayaa dhexda, kadibna farta waan weyneynayaa. waxaad ka bedelan kartaa sidaas la mid ah farta aad ku qoraysid, kadibna waxaad ka bedeli kartaa midabka haddii aad inta aad u baahan tahay oo midabkaad jeceshahay aad ka dhigan kartaa. waxaan imaanayaa marka qaybta ka hooseysa oo halkaasi markaan imaado waxaan geysanayaa marka cursor-kayga qaybta leftiga ah, kadibna waxaan soo dooranayaa waxa la yiraahdo table. waxaan ku dhufanayaa insert-ga, kadib waxaan ka dooranayaa table, kadibna waxaan soo dooranayaa afar god ayaan soo dooranayaa. qaybta ugu horeysa waxaan leeyahay no oo laga soo gaabiyo serial number-ka. qaybta ku xigta waxaan ku qorayaa halkaasi name magaca. qaybtani waxaan ku qorayaa qofka shaqada uu qabto, sida halkan waxaan ku qorayaa mushaharka uu qaato. intaan marka hoos aan u digin waxaan sameynayaa tabeladan ayaan marka column-yada ayaan tutusinayaa oo numerous ayaan u badinayaa. halka salary marka aad joogtid waxaad ku dhufanaysaa tab oo waxaan leeyahay number one waxaa ugu horeeya ninka la yiraahdo Mohammed Gadir. shaqadiisu waa manager. wuxuuna bishii u qaataa lacag gaaraysa ilaa iyo 500. waxaan leeyahay haddana tab qofka labaad ayaan qorayaa oo waxaan leeyahay qofka labaad waa Cali Axmed ninka la yiraahdo. shaqadiisu waa macalinimo, teacher waa isaga. shaqadiisu waa teacher, macalin. isagana bishii wuxuu qaataa lacag gaaraysa ilaa iyo 200 ayuu qaataa. inter ma dhahayo oo waxaan taabanayaa tab ayaan taabanayaa. haddana waxaan qorayaa marka qofka saddexaad oo ah Najma Cali. shaqadeeda iyaduna waa businesswoman, waa ganacsato. iyaduna waa ganacsato. lacagteeda ugu yaraan waxay qaadataa iyaduna waxaan leeyahay bishii oo iska estimation ilaa iyo 700 ayay qaadataa. marka waxaan rabaa inaan halkan qaybtan hoose aan ugu sameeyo waxa la yiraahdo total. intaan aan ku qoro halkan aan isku daro. waxaan tagayaa insert ayaan dib ugu laabanayaa, kadibna table ayaan ku dhufanayaa, kadibna waxaan soo qaadanayaa draw. markaan soo qaato qalinka halkaas ayaan imaanayaa ilaa halkaasi ayaan ku jiidayaa. ilaa halkaa markaan ku jiido haddana waxaan kala barayaa dhexda oo halkaasi ayaan ku dhufanayaa. halkaas markaan ku dhufto marka halkaas ayaan waxaan ku leeyahay double click oo waxaan ku qorayaa total. waxaan imaanayaa halkan markaa imaado waxaad ku dhex jirtaa tableka markaad ku dhex jirtidna wuxuu kuu soo saarayaa halkan ay ku qoran tahay qaybta kore layout. halkaas ay ku qoran tahay layout. okay, haddaa tableka ka dhex baxa marka waxaa meesha ka baxaya layout wax la yiraahdo oo banaanka ay istaagaysaa. waxaan ku noqonayaa marka tableka, kadibna waxaan ka dooranayaa layout. markaan ka doorto waxaan kasii dooranayaa halkan ay ku qoran tahay formula.
formula markaan ku dhufto waxaa ii soo baxay qaacido la yiraahdo sum above micnaheedu waxay tahay wixii intaan godka ah ku jira aniga isku soo dar. kadibna waxaan leeyahay markaasi okay markaan dhaho halkaas maxaa aragtaa 1400 inuu ii soo saaray xisaabta guud ee meesha igu qoran. sidaas waa sida table aad ugu samaysan lahayd wordka adigoo isticmaalayo xisaabtan aad isku dari lahayd oo total aad ugu samayn lahayd. fadlan haddaad nagu cusubta subscribe saar una share gari asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.